cabdirasaaq cabdulaahi sheekhdon geedaha xabagta aynu adeegsan jirno koorta ku xiri jirnay si shanqadha ay meeshu ka jira awaha ama ameelka ama biraha ama dhakalka na farsameyn jireen oo wuxuu noqon jiray hoy aan ku hoyana halkaas ay noo ahayd in yar ka hor ayaa waxaan soo dhigay sawiradan aad arkaysaan ayaan soo dhigay ee ah agabkani guud ahaan waxa weeye waa agab wax jara ama wax gooya geedaha gooya ama geed ha lagu gooya ama geed la gooyay ha lagu qoro oo ha lagu sakamo oo ha lagu simo oo ha lagu suugaaneeyo hadba midba meel buu galaa waxaan rabaa marka inaan isla eegno wax yar daqiiqada ka hor ayaa soo dhigay laakiin commentayaasha laga soo bixiyay qayb kamid ah ayaanu soo qaadanaynaa waxa uu horeeyay cabdirasaaq cabdulaahi sheekhdon oo ah nin saaxiibkay ah aad halka kaga salaamaya cabdirasaaq wuxuu yiri kow lambarka koowaad uu soo qaato wuxuu yiri gudin dadka qaarna waxay u garanayaan misaar dad baa u garanaya dad baa faas u garanaya gudin dad baa u garanaya wuxuu yiri kow gudin geedaha baa lagu gooyaa ama xoolaha baa lagu oodaa baa yiri sidoo kale ama geedaha lagu gooyaa sidoo kale xoolaha lagu oodaa macnaheedu aad geed ku soo goosato oo haan ama koor ama ma garanaysaa dhiil ama dhakal ama ameel ama gaawe ama bire waxaad garanaysaa u garay geed inaad qoran rabto oo hagaajisan rabto inaad ku soo gooyso ama inaad aad ku gooysato ma garanaysaa aad xoolaha ku oodato labadaba waa lagu qabtaa buu yiri laba wuxuu yiri quraar ama qorimo kooraha ama haamaha markii la qoraya baa lagu fagfagaa buu leeyahay warabsaaqo maxaa weeye maxaa la fagaya walad waa tahay inta ka gudubna wuxuu yiri waa lagu fagfagaa buu yiri waa mid labaad waa qorimo ama waxa uu garanayaa buu yiri quraar ama qorimo labaas mid ka doonto ayaad oran kartaa buu yiri marka shaqada lagu qabtana waxay tuu yiri ama koor ama haan ama dhakalka biraha gaawaha u garanayso ama xeero ama fandaal hadba waxa noqonaysaba waxba lagu fagfagaa buu leeyahay oo lagu qoraa ma garanaysaa saddex quraar loo yaqaano quudo ama gudabixis saddex wuxuu yiri quraar loo yaqaano ama loo garanayo quudo ama gudabixis koorta gudaha looga qoraa buu yiri koorta ayaa gudaha looga qoraa buu yiri qaybta gudaha ayaa koorta saddex wuxuu yiri quraar loo yaqaano quudo ama gudabixis oo koorta gudaha loogu qoro yiri koorta gudaha looga qoro qaybta gudaha ayaa looga qoraa buu yiri afar wuxuu yiri xalaafato oo ah shayga koorta lagu sisimo gudaheeda koorta gudaheeda ayaa lagu sisimaa buu yiri cabdirasaaq marka afartan sawir midba ee ku muuqata midba waxbuu ku sheegay afar lambar buu yeelay afarta lambarna wuu kala macneeyay mid waliba iyo wuxuu qabta iyo isaga wuxuu u garanayo aad u mahadsantahay saaxiib cabdirasaaq waxaan ku leeyahay guuleyso waxa kale oo isaguna labo aanu soo qaadanaynaa maxamed samaan wuxuu yiri abwaane waa qurmad xagaafo iyo faashad oo laba ah sagan wuxuu garanayaa wuxuu yiri wax meesha ka muuqanayo kow mid waa qurmad buu yiri midda kale waxa la yiraahdaa buu yiri xagaafo iyo laba faashad weeyo yiri wax meesha ka muuqanayo faashadana laba weeyo faashad kala dadka qaar baa waxa ku soo dhacaya markii faashad la yiraahdo tii ma garanaysaa qof markuu injir noqdo ama dhaawac u noqdo ma garanaysaa lagu duubayay waa hagaag aad u maasanta adiguna sidoo kale cabdullaahi aadan shidan isagana wuxuu yiri waxaan u garanayaa ama ay yihiin buu yiri waa qurumbo iyo xaaqdo buu yiri qurumbo iyo xaaqdo iyo qurumbo ayuu u garanaya isaguna dad badan oo ka sii badan inta ayaa comment ka soo bixiyay dhamaantood kama gaari karno qayb baan ka soo qaadanayna iyaguna inta kalena waa mahadsantiin baan leenahay inta aynu akhrinana waa mahadsantiin baan leenahay haddii aynu nahay Soomaali inagu markii hore wax la cuno agabka la adeegsado ama hoyga aynu seexana dhammaan ma jirin wax reer galbeed inoo keenay ama qurbaha nooga yimid ma jirin cuntada miraha geedaha xabagta cad iyo caano baynu isticmaali jirnay bacdi caanaha kala jooda caanaha xoolaha ama hilibkooda sidoo kale agabka aynu isticmaalno sida kooraha oo loogu talagalay in shanqadha geela lagu dhageysto oo neefka geela ama neefka xoolaha meesha uu ka jira ama dhanka uu ka maqay waa taleefanka de ma garanaysa taleefankan hadda aynu wadano oo gaalada waqtiga ay keentay inagu waqti hore ama xilli hore ayaynu haynayba macnaha faa'iidadiisa ma garanaysa xoolaha aynu adeegsan jirno koorta ku xiri jirnay si shanqadha meesha uu ka jira aynu ogaano
iyaguna isu soo raacaano neefka koorta waxa weeye yeerinaya geela intiisa kale waxa weeye dhanka ayuu soo aadi jiray oo neefka koorta uu wada dhageysan jiray marka sidoo kale wax caanaha lagu maalo waxa weeye gaawaha ama ameelka ama biraha ama dhakalka ama gorofka ama magaraysa isku mid weey waxa dhan waxa weeye lahjada uu kala duwan ayaguna inaga sameeysan jirnay oo xoolaha caanaha kaga maaleen haamaha iyo dhiilaha aan caanaha ku shubanaynana iyaguna inaga qoran jirnay oo hagaagsan jirnay agabka waxa weeye hoyga la seexanayana dumarka inoo sameyn jiray dumarkeena ayaa sameyn jiray oo waxa weeye aqal Soomaaliga ma ahayn waxa dibad laga keenay ee waxaynu anaga leenahay oo Soomaali inagu aan leenahay oo dhulka yaga aan ka soo gurnay hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa ma garanaysa inay soo guraan cawska ayay deetana farsameyn jireen oo wuxuu noqon jiray hoy aan ku hooyana halkaas inoo ahayd gogolna way nooga sameyn jireen waxa weeye aynu ku seexan ma garanaysa dhamaan waxaynu kaga baahnayn ma jirin waxa ku soo haray agabkani lagu qoro ama waxa weeye ama geed ha lagu gooyo oo ta lagu soo goosto oo gudin ha ahaato ama qorimada ama qurumbada iyo dhamaan waxyaalahan ayaguna waxa sameyn jiray dad Soomaaliyeed ayaa tumi jiray oo Soomaalidu oran jirtay qofka waxa tuma dadku biratumaha la yiraahdo raggu biratumaha xirfadda yaqaan ayaa noo sameyn jiray Soomaalida xirfadda inaga waxa weeye lahayn laakiin maanta waxa timi in dhamaan wixii dhan aynu ka siibanay oo wax maanta anaga aynu leenahay reermiyigu maanta caanaha waxay ku shubanayaan caag weeye plastic caag ah oo meel laga keenay weeye geeli waxa lagu maalayaa ama maanta lagu lisayaa meel badan waxa weeye caagi oo la jaray ayaa geelo lagu lisayaa wixii dhan waynu ka waxa weeye waynu ka gudubnay oo maanta waxaynu leenahay aad bay u yaraadeen taa ay ku tusaysaa marka in dhaqankii iyo dhamaan wixii laga siibanaya aad u maasantiin in aynu isxasuusino waxyaabihi aynu lahayn haddana loo baahan yahay wali in aynu gacanta ku hayno waa muhiim adiguna sidoo kale waxaad commentiga nagu soo wadaagi kartaa waxaad u garanayso agabka ama shaqooyinka ay qabtaan sida adiga u sharaxaya aad baad u maasantiin waxa laga yaabaa deegaanada Soomaalida iyo meelaha kala degan yahay xagga lahjadaha sida loo garanayo in ay kala bedelan tahay laakiin isku mid weeyo oo hal meel bay imaanayaan Soomaalidu waa tan ay tiraahdo biya meesha godon bay isugu soo aruuran aad baa u maasantiin